بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa xaraf.com ee college caalamiga ee xaraf international college xaruntiisa Nairobi. ku soo dhawaada casharkeena isbuuclaha ee waa inooga barateen in halkan kaga soo gudbino habeen walba oo Jimcaha. casharkeena waxaan ku eegaynaa sida aad video u soo gashin kartid aalada YouTube-ka. waxaan ognahay in YouTube-ka videoya aad u fara badan ay ku jiraan isla markaana laga daawado. sidee ma usoo gashan karnaa annaga video aan leenahay oo aan samaysanay aalada YouTube-ka si dunida dacaladeeda looga daawado. cashirkeena waxaan la socodsiinayaa alaaban halkan kala socodsiiya anigoo ah Yusuf Sheekh Ahmed. cashirkeena hore u galno marka aad rabtid in aad YouTube gelisid video waxaa laga maarmaan ah in aad account ku leedahay shirkadda Google. waxaan ognahay YouTube inay leedahay shirkadda Google oo ay ugu talagashay in videoyada la geliyo. sidaa darteed waa inaad account ku leedahay shirkadda Google kaasoo la yiraahdo Gmail. isbuucii hore cashirkii ka horreeyay waxaan kusoo qaadanay sida Gmail loo samaysto kaasoo aad dib uga heli kartiin cashirkii ka horreeyay haddii aad u baahan tihiin inaad baratiin. waxaan soo gelaynaa YouTube-ka annagoo maskaxda ku hayna in aan leenahay account ku leenahay Google. markaan soo galna kadib geeskaas ayaan tagaynaa waxaan ku dhufanaynaa sign in meeshay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa oo macnaheedu yahay waxaan rabaa inaan account-kayga soo furto. qof walba account-kii uu samaysto ayuu halkan gelinaya aniga account. hadda waan soo galay oo account-kayga ayaan ku jiraa. waxaan ku fahmi kartaa calaamadaada ayaa mar walba xagga saarnaa doonta geeska saddex tagtid oo ku dhufatid sign out hataa aan dhigi karno markaan rabno inaan ka baxno. markii aan soo galno kadib waxaan ku dhufanaynaa geeskaas oo ay ku qoran tahay upload ay ku qoran tahay. upload markaan ku dhufano wuxuuna keeni doonaa shaashadan laba option ayaa videoga u keeni kartaa. waa meesha videoga la soo gelin lahay. optionka koowaad waxa weeyaan inaan ku dul dhufano kadibna aan videoga soo doorano. kan labaadna waxa weeyaan in aan ku soo jiidno videoga oo halkaan aan soo dhigno. labaas ayaa inoo furan. waa ku dul dhufano annaga optionka ku dul dhufashada aan qaadan oo ku dhufanayna. markaan ku dhufano kadib wuxuuna geenayaa meeshii locationkii oo faylku noo yaala ayaa raadsanaysaa. aniga desktopku ii saaran yahay kadibna Soomaaliya ayaan rabaa inaan video ku saabsan oo calanka ka hadlayo inaan tusaale ahaan u isticmaalno. dooranaysaa kadibna open. kadib wuxuu bilaabayaa uploading oo ah ku shubitaanka oo ku shubayo YouTube soo gelinayo filmkan ama videogan. intuu soo gelinayo aan sharaxaad ka bixino waxyaabaha aan hoose laba qaybood ayuu leeyahay oo kala basic iyo advance. basic aan ku bilaabno. basic waxyaaba ugu horeeya waxa weeyaan waa inaad gelisaa maxaa dadku markay raadinayaan videoga magacay ku raadinayaan. magaca u bixinaysaa. tusaale waxaan dhahaynaa stanta calanka Soomaaliya. kadib meeshan waa qeexitaankii ama description-kii. ku qor adiga wixii markaas description ku ah tan waa information-keena anaga iskuulka. waa gelin kartaa. qaybtan kale ku xigta waxaa la yiraahdaa waa meeshii tagging waa qof walba uu yaqaanaa. Facebook ayaa ku naqaanaa. tagging waxa weeyaan markii aan ku qorno videogeena haddaan qorno Soomaaliya inuu videogan soo baxo. tusaale ahaan magacyada markii la qoro aad rabtid inuu videogaaga soo baxo ayaa qoraysaa. astaanta markii aan qoro waxaan rabaa inuu videogaaga soo baxo. haddii la qoro calanka inuu videogeena soo baxo. qof walba YouTube-ka ku qoraa calanka ama astaanta ama hebel inuu soo baxo. halkaan aad gelinaysaa. haddaan hadda qoro astaanta hadhow qofkii astaanta ku qoraa YouTube videoyadeena iyo videoyo kaloo dabcan dad kale astaanta ula baxay oo kale ayaa soo baxaya. sidoo kale meeshan waxaa ku qoran custom thumbnail. thumbnail waxa weeyaan videogaaga muuqaalka marka koowaad uu ku soo baxayo. waxaa kaloo jirta qaybtan ay ku qoran tahay public. oo soo furi karnaa wuxuu leeyahay public iyo unlisted iyo private. haddii aad videogaaga qaabka u rabtaa waxaa rabtaa inuu public noqdo mise private ka dhigan rabtaa oo ama unlisted. public haddaa rabtid dadka dhan aad daawanaya. haddaa private dooratid waxa weeyaan adoo gooni ku yahay. annaga public ka dhigaynaa. kadib fariin ayaa ku dari kartaa videogaagan oo ah fadlan share garee oo kale ama videogan wuxuu ku saabsan yahay sheegaysaa. waxaa kaloo jirta waxaad ku share gareyn kartaa qaybta la yiraahdo Google Plus oo Gmail-ka qayb kamid ah oo casharadana soo socda insha Allah aan ku qaadan doono iyo Twitter oo kale asna waa ku share gareyn kartaa. kadibna uu ka dhex muuqanaya. thumbnails-ka waa kuwana way noo soo bixin. thumbnail-ka misaan rabtaa inuu muuqdo misaan videogaaga wuxuu ku bilaabanaya ayaa thumbnail baxaa. waxaa kaloo dooran karnaa custom thumbnail
kaasoo ku siinayo option ah saddexdan midaan ahayn inaad soo dooratid oo adiga aad meesha soo dhigtid. qaybtaas waa qaybta koowaad ee basiga. qaybtan kale oo advanced setting ah iyadana waxyaabo badan ayaa ku jira oo videogeena saameynaya. tusaale ahaan haddii aan rabno videogeena in aan comment laga bixinin waxaan ku dhufan karnaa tigta ka qaadayna commentiska markaas wax comment ma laga bixin karo, ama waxaan sameyn karnaa tigta saarayna waxaan dhigi karnaa laba option aan la siinaa. optionka hoose waxa weeyaan commentiga anaga proof gareynayno oo dhahayno commentiga waa ogolnahay iyo ma ogolin, iyo dhammaantood waa ogolaanaysaa oo comment waa laga bixin karaa. waxyaabaha kale muhiimka meeshan waxa weeyaan haddii aragto meeshan hoose oo age restriction ay ku qoran tahay tigaan saari karnaa oo macnaheedu yahay da'da 18 wixii ka hooseeya ma daawan karnaa barnaamijkaygan, waa haddii oo barnaamijka uu saas oo kale uu yahay. soo kaasna waa age restriction waa dooran kartaa. intaas kadib markii aad soo gabagabaysid oo videogaaga basekiisina soo dhistay advancekiisina aad dhistid waxaa samayn kartiin marka publish aad ku dhufanayna. annagoo publish ku dhufanina videogeenan ma noqon doona mid YouTube laga daawan karo. sidoo kale markaan publish ku dhufano videogeena isla markii diyaar ma noqonayo, shirkadda oo YouTube ayaa waxay sameynaysaa in ay fiirido bal inuu ku habboon yahay in bulshada loo gudbin karo, kadibna way ku ogolaan doontaa waqti kadib. so publish ayaan hadda ku dhufanayna. markaan ku dhufana kadib wuxuu leeyahay your video has been published, waa la geliyay videogan. xataa haddaan ku dhufano linkigan yarka ah wuxuu nagu xiri doonaa YouTube, videogeena YouTube ayaan toos uga daawanaynaa. balaa ku dhufan so videogeena waa kana waayo inoo soo galay isagoo magaca u bixina leh Soomaaliya iyo descriptionkii iyo wixii aan siinay. sidaas ayaa loo soo gelin karaa YouTube video. sidoo kale insha Allah taala isbuucyada soo socdo waxaan sii wadi doonaa casharrada ku saabsan YouTube-ka anagoo baran doona sida looga saari karo YouTube-ka videogan aan soo geliyay, sida uga saari karo, sidaan u edit gareyn karo iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan. guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa casharkeena caawa oo aynu kusoo qaadanay sida aad video u gashan kartid aaladda YouTube-ka. waxaan ka codsanaynaa inaad casharkan sheergaraysid si Soomaali badan ay uga faa'iideystaan kuwaasoo u baahan in ay geliyaan YouTube-ka video ee ay iska leeyihiin. sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad page-keena like sartiin kaasoo aad habeen walba casharada kala socotaan. inta aan ku kulmi doono casharkan casharka xiga isbuuca soo socda waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.